anigoo ku hadlaya magaca Ardayda Soomaaliyeed ee dalka Uganda ahna xogayihii Ardayda Soomaaliyeed ee dalka Uganda waxaan hambaliyo iyo tahniyad iyo salaan u dirayaa ku aadan maalinta kooda Luuliyo ahna maalin aad noogu weyn Soomaali ahaan maalintan xorownay goomista ka xorownay walaalaheen aan la midownay waxaan leeyahay ummadda Soomaaliyeed dhamaan meel walba joogtaan sanad guuro wacan oo wanaagsan midda kale waxaan u mahadcelinaa dhammaan gudoomiyaasha ardayda Soomaaliyeed oo halkan isku heebalamiyeen khaasatan gudoomiyaha Bakar Cali oo coordinator waa dhammaan gudoomiyaasha ardayda Soomaaliyeed ee jaamacadaha dalka Uganda aan ugu hambaliyeeyo kooda Luuliyo oo ah maanta muddo laga joogo 60 sano oo ay Soomaali ismaamuleysay Soomaali 60 sano muddo ka horeysa ma aysan lahayn wax la self governance ama independence wax la dhaho taasina waxa noo suurtageliyay awooyaashin ma hata ka gaarto qabrigoodan Allah u waasiciyo taas waxa noo suurtageliyay awooyaashin marka waxaan rajaynayaa dhammaan Soomaali meel walba ay joogto inay maanta meesha awooyaashin ay soo dhigeen meel ka sareysa aan geyn doono waxaan halkan u taaganahay inaan la qaybsano shacabweynaha Soomaaliyeed maalinta weyn ee kooda Luuliyo xorriyadda ee qaadatay gobolada Koonfureed ee Talyaaniga ka qaateen waxaan kale u mahadcelinaynaa midowga ardayda Soomaaliyeed gudoomiyaasha jaamacadaha iyo coordinatorkooda Bakar Cali oo soo qaban qaabiyay inaan meeshan isku nimaano dareenkeena ku aadan maalinkaas weyn aan ka muujin halkan aan halkan hambaliyo ugu dirayaa dhammaan ardayda Soomaaliyeed oo joogto dunida daafaheeda khaasatan ardayda joogto dalka Uganda waxaan leeyahay hambaliyo waa maalin run ahaantii aad farxad u leh oo ah guul ay Soomaali gaartay maantana looga baahan yahay meesha aan joogno inaan mataqaanaa kor uga qaadno Soomaaliya runtii kulan weyn lama